ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا قيبتي اللباد iyo barnaamijkeennii hal taclam ama ma ogtahay. waxaan u ballansanayn inaan waqtigan oo kale soo gudbino barnaamij diini ah oo aan ku kala faa'iideysanayno ooguna magac daray hal taclam. waxaan filayaa inaad wax badan ka faa'iidi doontaan. fadlan haddii aad ku cusub tahay ku soo biir oo subscribe dheh channelka dacwada diinta ee ilayska islaamka. ma ogtahay in nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam waqtigii uu ku bilaabanayay waxyiga uu jiray 40 sano, taa oo ka dhigan inay dacwadiisu qaadatay 23 sano, waayo rasuulku wuxuu ku geeriyooday 63 sano. 63 markii laga jaro 40 waxaa ku soo hadhay 23. ma ogtahay in 23 sano uu nabigu 13 sano oo kamid ah ku noolaa magaalada Makka. quraankii waqtiga soo degayna oo inta badan ka hadlayay aqeedada. meesha 10kii sano ee dambe uu ku noolaa magaalada Madiina la jideeyay ahkaamta kale ee shariicada islaamka. ma ogtahay in nabiga sallallahu alayhi wasallam markii uu soo galay ama imaaday magaalada Madiina inuu ku degay oo uu joogay guriga saxaabiga lagu magacaabo Abu Ayyub al-Ansari. ma ogtahay in nabiga sallallahu alayhi wasallam amalkii ugu horeysay ee uu magaalada Madiina ka qabtay inay ahayd dhisitaankii uu dhisay masjidka. talaabadii u horeysay ee uu qaaday waxay ahayd wuxuu dhisay masjidka oo ahaa gurigii madaxtooyada, wasaaradii gaashaandhigga, xabsigii iyo madrasadii iyo iskuulkii wax lagu barayay. waayo howlahaas oo idil ma jirin meel kaleeto oo lagu qabanayay. nabigu wuxuu ku qaban jiray ama ka fulin jiray masjidka. ma ogtahay amalkii labaad ee uu nabigu ka qabto magaalada Madiina inay ahayd walaalayn uu walaaleeyay muhaajiriin iyo ansaar. asxaabtii ka soo hijrootay magaalada Makka ee hantidoodii iyo wax waliba iyo reerahoodiiba magaalada Makka kaga soo cararay, wuxuu walaal kala dhigay asxaabtii joogtay ama deganayd magaalada Madiina. ma ogtahay amalkii saddexaad ee uu nabigu qabto inuu ahaa ballan ama ahdi uu la galay yahuudii deganayd magaalada Madiina. ma ogtahay nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu soo hijrooday inay Quraysh madaxiisa ay kor dhigtay 100 halaad. ninkii soo dilaa ama arkaa ee soo sheega wuxuu leeyahay 100 halaad. ma ogtahay saxaabiga lagu magacaabo Suraaq ibn Malik inuu la kulmay oo uu arkay nabiga iyo Abu Bakar markay hijrada ku soo jireen isagoo waqtiga gaal ahaa. wuxuuna isku dayay oo uu rabay inuu dilo oo uu qaato 100 halaad ee Quraysh dul dhigtay nabiga sallallahu alayhi wasallam, laakiin mucjiso ayuu la kulmay. markii uu soo dhawaado nabiga ayuu faraskiisii dhaqaaqi waayay. waa uu diiday inuu xagga nabiga aado. markii uu mucjisada la kulmay in badan, Suraaqa wuxuu go'aansaday inuu iska laabto. wuxuuna ku yidhi waan laabanayaa ee maxaa idin qabtaa. wuxuu rasuulku ku yidhi waxaad naga celisaa dadka xagga naga u soo socda. markii uu Suraaqa dhaqaaqay wuxuu nabigu ku yidhi Suraaqo ka waran haddii aad xidhato taajka Furus oo ahayd markaa dowladihii ugu awood weynaa caalamka. Suraaqa waa u yaabay, waa una rumaysan waayay, laakiin waa ay rumowday waqtigii uu mu'miniinta ama muslimiinta madaxda u ahaa Umar bin Khattab ay dowladii ama ciidankii islaamka waxa ay gaadheen Furus oo ay qabsadeen, dileenna ninkii madaxdooda ahaa. waxayna ka soo qaadeen dharkii iyo taajkii uu qabay ninka boqorka ahaa, waxayna u soo dhiibeen amiirkii mu'miniinta ee Umar bin Khattab. Umar waxa uu raadiyay Suraaq ibn Malik waa uuna u xidhay. sadaqa rasuulullah. ma ogtahay in nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo Abu Bakar ay kala yaraayeen 2 sano oo kali ah. waxaa yaraa Abu Bakr Siddiq, Allah ka raali noqdee. ma ogtahay in Abu Bakr Siddiq uu yahay saaxiibkii nabiga laguna sheegay quraanka kariimka ah. ma ogtahay Abu Bakr inuu yahay mid ka mid ah 10ka lagu bishaareeyay jannada, sidoo kalena yahay khaliifkii koowaad ee muslimiinta madax u noqda nabiga gadaashiisa sallallahu alayhi wasallam. ma ogtahay Abu Bakr Siddiq waxyaabihii ugu waaweynaa ama caqabadii ugu weyneed ee ka hortimaaday markuu xilka qabtay inay ahayd riddadii. markuu nabiga geeriyooday dad fara badan ayaa diinta ka baxay oo dhahay nabi Maxamed hadduu dhintay diinta waxba nagama sii gelin.
laakiin abubakar markii u dambeysay waa uu ka guulaystay. wuxuu qaatay go-aan adag wuxuuna la galay dagaalo lagu hoobtay oo markii dambe muslimiintu ku guulaysteen. ma ogtahay abubakar sidiiq inuu yahay saxaabiga amray in kitaabka qur-aanka kariimka la qoro? waqtigii nabiga qur-aanku kuma qorayn sida uu yahay ama hal meelaha kuma qorayn. saxaabadu waa ay xifdisnaayeen, laakiin markay bilaabatay, ma ogtahay sababtii keentay inay ahayd xufaadii asxaabta qaybo badan oo ka mid ah ayaa waxay ku shahiideen oo lagu dilay dagaaladii xuruubu ridda. markaa ka dambe ayuu abubakar wuxuu amray zayd bin thaabit inuu kitaabka qur-aanka la qoro, sifa markay saxaabadu dhintaan ama dhammaadaan uuna qur-aankii inqidaac ugu imaanin. sidii ayaana qur-aanka kariimka lagu qoray. ma ogtahay cumar bin khadaab allaha ka raali noqdee iyo nabigu inay kala weyn yihiin 13 sano? nabiga ayaa weyn, cumar ayaa yar. ma ogtahay cumar inuu isna ka mid yahay 10 loogu bishaareeyay jannada, yahayna khaliifkii labaad ee muslimiinta? ma ogtahay in cumar bin khadaab uu yahay qofkii ugu horeysay ee lagu magacaabo amiir muslimiinta dhexdooda? ma ogtahay in cumar bin khadaab allaha ka raali noqdee uu muslimiinta madax u ahaa 10 sano iyo badh? inta ayaa idiin soo gudbiyey. waxaan filayaa inaad wax ka faa'iideen. wixii aan khalday naftayda iyo shaydaan bay ka ahaatay, wixii aan saxayna ilaahay subxaanahu wa tacaala ka ahaatay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.